kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada channelka Salma Vlog and Entertainment. haddaan nagu cusub tahay subscribe oo qaybta gaduudan ku dhufo isla markaana furo meesha gambaleelka ah si aad noola socoto oo aan muuqaalada aan soo gelin doono ay kuugu soo hordhacaan insha Allah. tana muuqaalka waa xubinteeni toosiyaha jacaylka. deganaanta xishoodka iyo caqliga ayaa saldhig u ah qofka wanaagsan kadibna akhlaaqiyadkiisa iyo diinta sida uu ku yahay ayaa waxay u sahli kartaa in aad soo dhawaysan karto qofkaasna yahay kii ku anfici lahaa. xiriirkaas qof leh lama helo waayaan gabaray ama wiilow ku xulo qofka aad guur iyo mustaqbal ka rabto inahaas aan idin sheegnay. waa hubaal in xiriirkiina haasaawaha uu soo gaari karo waddo wanaagsan. quruxda iyo maalka waxay ku horseedi karaan oo aad muddo ku fakirto in qofka aad ku xulato in aad ka raagto oo da'daadu ay gaarto meel lagu sheego wadkiis dhale inaad noqoto. inkastoo wax walba calaf yahay haddana walaalaha ay ku socoto fariintan ha isku qiimeeyaan qadarin badan qiimeyn qofba qofka kale xiriirin joogto ah kulankiina haddii uu yaryahana ama aad kala fog tihiin cod ahaan isku maqla xilli kasta. waa hubaal in nolosha sida loo maleeyo aysan ahayn balse ay wejiyo badan dadka ku soo marto. hase ahaatee qiimaha nolosha waxaa fahmi kara labadii isku dulqaata isku naxa inta haasaawaha iyo xodxodashada ay ku jiraan. muhiim maaha in lacag gabadha aad siiso adoon qabin ama aysan xaaskaagu ahayn, laakiin haddaad u garato oo hadiyad ahaan aad u siiso waa caadi middaasi. tusaale kale wiilal badan ayaa maanta mustaqbalkoodii ku waayey ama aan ilaa haatan u guursan in ay helaan awgeed gabar hanti leh oo ay wax walba ka rabin, taas oo ay marasho iyo maal kaleba ay iyaduba ka helayaan. balse wiilow ma isweydiisay middaas inay la mid tahay dukaan ama goob ganacsi oo inta aad gashay alaab ka soo qaadatay adiga oo aan lacag bixin. caqliga ugu xun waa jeebkaaga waxaan ku jirin oo aad u hawooto. niyad dhisid, kalsooni, daacadnimo runa iyo dareenkaaga oo aad u muujiso si qaalis ah ayaa jacayl lagu kasbadaa qofkana uu kuugu soo dhowaadaa. huwaada gabdho badan iyo wiilal dhowr ah ay ku jiraanna waa midda guurkii ka cararisay. kaaga darane gabdho la baxay bebikash ayaa waayahan soo batay gudaha Soomaaliya sidii in ninka lacagta siinaya iyadu uu yahay saygeeda oo kale. yeelkadeede sidaas jacayl maaha ee waa danaysi iyo nafsi adiga kugu maqan dib dambana kaaga soo bixi doona haddaadan ka fakerin mustaqbalkaaga. doorkeenna waa dhiirigelin. haddaad daawatay muuqaalkan waan kaaga mahadcelinaynaa qiimahaada iyo sida aad noo sharaftay. muuqaalkan haddii uu ku soo jiitay like noogu dhufo, haddaad nagu cusub tahayna subscribe noo dheh. waana mahadsan tahay. gudahaana daawadayaal intaasaynu ku soo gabagabaynaynaa xubinta toosiyaha jacaylka. Salma Vlog and Entertainment ayaad ka daawanayseen. waad ku mahadsan tahay inaad na daawatay oo muuqaalkan aad la socod. intaan dib dambe isku arki doonno muuqaalkan mid ka xiga sidaas iyo nabadgelyo. wadadigu badana muuqaagu dheeray intaadiga ag maqantay masexdu habeenkii waan soo mirkacaya mugdiguna habeenadan ila siimadooba yaanan mariyahaaniye marwadan jeclaaye kala marmimayne maru nabad ku soo